dagaalka siyaasadeed ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Masar isla markaana salka ku haya biyo-xireenka Itoobiya ka duldhistay webiga Niil ayaa maalinba waji cusub u gudbaya. bilihii u dambeeyay oo dhan waxaa lagu guuldareystay inay wada hadlaan oo ay heshiis gaaraan dowladaha Suudaan, Itoobiya iyo Masar oo ka wada faa'iideysta biyaha webiga Niil, maadaama uu khilaaf xoogani si gaar ah uga dhaxeeya Masar oo dadkeedu boqolkiiba 90 biyaha ka helaan webiga Niil iyo Itoobiya oo webigaasi ka duldhistay biyo-xireen ay ku baxday adduun lacageed oo ka badan 4 bilyan oo dollar si ay mustaqbalka uga dhaliso tamarta leyrka. sababta ugu weyn ee heshiis loo gaari laayahay ayaa warbaahinta dunidu waxay ku sheegtaa Itoobiya oo ka dhaga adeegaysa inay joojiso biyo-xireenka ama ugu yaraan dib u dhigto buuxintiisa oo laga cabsi qabo inay yareyso qulqulka biyaha gaara Masar, taasi oo Masarna meel adag ka taagan tahay. laakiin siyaasiyiinta maxalliga ah ee Itoobiya oo arrintan isha ku haya ayaa qaarkood waxay sheegayaan in Masar ay sii xoojisay dagaal ay sheegeen inuu weligeedba ka dhaxeeyay Itoobiya. Obang Metho oo ah madaxa urur lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa midnimada oo xarintiisu tahay Addis Ababa ayaa maqaal dheer oo uu ku baahiyay internetka wuxuu ku sheegay in Masar bedeshay dagaalkeeda ka dhanka ah Itoobiya isla markaana ay dagaalkii ka dhigtay mid dadban si ay u waxyeeleyso amniga gudaha ee Itoobiya iyo dhaqaalaheeda. wuxuu sheegay in Masar doonayso inay xidho marinada ganacsiga ee Itoobiya gaar ahaan dekedaha badda cas sida Somaliland, Djibouti iyo Eritrea si loo go'doomiyo Itoobiya si taasi ugu suurta gashana ay qas iyo amni xumo ka abuureyso badda cas iyo Suez Canalka. arrimahaasi oo dhan oo uu sheegay inay yihiin dagaal dadban oo ku socda Itoobiya. tani waxay u dhigantaa dib u bilaabid iyo balaarinta dagaalka dadban si loo go'doomiyo Itoobiya siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba, ayuu qoraalkiisa ku sheegay Obang Metho. waxaanu intaa ku daray in Masar ay doonayso inay xanibto marinada ganacsiga ee Itoobiya. waxa kale oo ay isku dayaysaa Masar inay xidhnaadaan jidadka ganacsiga ee Itoobiya sida dekedaha badda cas ee Eritrea, Djibouti iyo Somaliland. Obang Metho oo qoraalkiisu dheeraa waxa kale oo uu ku sheegay in Masar arrimahaasi oo dhan fulintooda u isticmaalayso siyaasad iyo sirdoonkeeda.